bismillah qaybta waxaan ku dul istaagi doonaa mala awaalka ama sawirashada khayaalka waxa loo yaqaan visualization ama iyo imagination. Albert Einstein wuxuu oran jiray imagination kuwa waxa uu ka awood badan yahay aqoonta lafteeda waayo waxaad horumar aragteen la hal abuuray marba sawir kaliya ahaa qof takhayulkiisa khayaalkiisa iyo mala awaalkiisa markii dambana real iyo nolosha dhabta xaqiiqada ayaa wixii loo bedelay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo abuuray sidii ugu wanaagsaneyd bini'aadanka laakiin awoodaha faraha badan Allah subhanahu wa ta'ala inoo siiyay wax yar baan ka isticmaalan ka adeegsanaa. Matan qaybtan visualizationka amba sawirashada hadafkaaga inaad sawiratid oo maskaxdaada ka daalacatid waxa kuu suurta gelinaya waxa weeye marka koobaad si clear hadafkaaga inaad u soo dejisatay waliba marka qaar aad sawir kala ka dhigi karaysid picture ahaan sida map khariidada kala aad u dabatana gidaarka aad ku dhajisan karaysid soo clear concrete color ku sameysay deetan si sawirkaasi kuugu fududaado oo si fiican u daalacan karaysid waxaad doonaysid waxaad sawiranaysaa wuxuu iskugu jiraa processkaaga dailyga waxaad maanta qabanayso galabta qabanayso caawa qabanayso iyo waxaad isbuucan iyo bishan sanadkan 10 sano waxaad hiigsanaysaa outcome-kaaga u dambeeya ilaa iyo aakhira iyo jannada iyo dhammaan ayaa sawiran karaysaa xilliyo kala duwan aad sawiranaysaa khayaali iyo malaawal aad ku arkaysaa. Matalan waxaa jirta maskaxdeena qayb Allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay subconscious ka qaybta la yiraahdo waa maskaxda waa qayb hoose marka maskaxdeena loo qaybiyo qayb wacyigeedu soo jeedo oo conscious kana iyo qayb subconscious ah qaybta waxa kamid ah matalan wax loo yaqaano RAS reticular activating system. RAS ku shaqadu inoo qabto waxa kamid ah xogta faraha badan millions gaadhaysa bal lagu tilmaamay 8 million bytes of information oo maskaxdeena saa u dhaxmaraya halka xungulada iyo soo maraya dambeetana ina dhaafaya xogta faraha badan waxa laga yaabaa in badan kama warhayno in badan way iska luntaa xogtaas waxa shaandheeya oo filter ku sameeya RAS-ka reticular activating system oo dareemadeena kamid ah dabeetana filter bay ku sameeyaan information-ka iyo xogta faraha badan leh wax badan oo aynan u baahnayn ama aynan ku baraarugsanayn wuu sii daaya filterkaasi iyo shaandhadaasi way ka baxdaa laakiin in kamid ah ayuu inoo soo reebaa xog kamid ah oo fikradiyo ideyooyin aan u baahanay intaasi badanaa waxa la xidhiidha qofku wuxuu aad u danaynayo ee hadafkiisa ah oo aad ugu hawlan yahay uu sawiranayo xumaan iyo wanaag waxay tahayba sababta markaas nafteena inagu isku eersanayno haddii qofku xumaan ku hawlayna xumaantaas u fududaanayso ilaahay u dhib yaraanaya sababta isaga ku hawlan deetana maskaxdiisuna way ka caawinun shaydaankuna saas uga faa'iideysan haddii wanaag qorsheeyo hadafyo waaweyn oo wanaagsan anfacayo qorsheystana maskaxdiisa iyo naftiisa iyo awoodaha ilaahay siiyayna waa caawinayaan marka RAS-kaas markuu filter ku sameeyo shaandheeyo xogta wixii aad sawiranayso khayaalkaaga kolba ku xoogan ayaa kuu soo hadhaya fikradaha ideyooyinka la xidhiidha markaas qofku fursada agtiisa ka arkaya la xidhiidha arrintii waa halka law of attraction iyo waxyaabaha yiraahdaan qaanuunka soo jiidashada iyo ka yimaadaan ee qofku markii hore wax aanu ku baraarugi jirin oo markii hore arki jirin hareerihiisa ka arki jirin uu si fudud u arko mar Allah li marka uu daneeyo deetan xoranaya waxaan awal hore ma arki jirin sababtoo imika waad sawiranaysaa aad bad doonaysaa hadafkaagu ka mid yahay marka jidka ayaad fursada la xidhiidha iyo chance la xidhiidha iyo fikrada la xidhiidha kolba kugu soo dhici doona markastoo aad ugu sii hawlanta sawirku si fiican kugu muuqdo. مثلا Harvard University baa baaritaan la sameeyay research study sameysay ardayba ku sameysay oo visualization kan xataa wax kasto baranayso rabta inaad study garayso barato uu ka caawinaya marka ardaydaas imtixaankii laga qaadayay qaarna waxa la yiraahdaa visualize garayo waxa laga caawiyay inay sawirtaan natiijadii iyo imtixaankii iyo inay galaan ay baaseen iyo wixii ay study garayeen iyo su'aashii wixii oo dhan ba sawirkii baa loo fudeeyay kuwa kamidna arrinta lagama caawina kaliya ta 10 kun bay soo diyaariyeen
dabeetana way isku yimaadeen imtixaan marka laga qaado waxa mar walba 100% sax u dhawaada kuwa visualization sameynay sidoo kale sportiska hadday noqoto fairka basketballka dadka ciyaara championska caalamka adduunka xidigiska ka noqda xidigaha xagga ciyaaraha kala duwan ay uu kamid yahay Maxamed Cali Kala Ilaahay naxariista uu kamid aha dhamaantood waxa lagu tababaraa ee kamida waxa weeyaan inay sawirtaan intaanay ciyaarta rasmiga ah garoonka tagin waxaana yiraahdaan in badan suurtagalba ma aha inaan fair ama kubadda kolayga inaan ku dhufto la helo goolka ilaa aan ka hor sawir ku sii arkay yani inaan sii takhayushay mooyaane RSku wuxuu ka caawinayaa inaad hesho fikradaha aad u baahneed fursadaha markaa taaganaad iyo wax kasto ka caawinaya si fudud ku tuso dad ha noqoto ashxaas shakhsiyo arintan ka caawinaya buugi aad u baahneed tooliska aad u baahneed techniques aad u baahneed wax walba markaas ma ku fududaanayaan oo arkayso dariiqaad ka arkayso sidii weydiinaysa waxaan markaa hore ma arki jirin sababtoo ah hadda waxaad hadafkaaga ba clear ku ah si fiican oo u takhayalataa dabeetana awoodaha Ilaahay ku siiyay naftaada kamida ayaa ka caawinaya awareness-kaaga iyo waxa wacyigaaga iyo soo jeedkaaga aad isku keentay aad ka warhaysad ka fikiraysid ayuu filterka kaaga soo reebaya inta ka anfacaysa la xidhiidha hadafka xogta inta kalena filterka iyo shaandadu ka tagay dadoo fiirsato qisadii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam siiradiisa khandaq markii godka la qodayay Nabi sallallahu alayhi wasallam markuu soo ku daadagay dhagax kamida meela kamida saxaabadu taag waayeen markii uu horeysay uu ku dhuftay wuxuu yidhi Allahu Akbar waxa la siiyay furihii Shaam waxaanan arkayaa waliba qasriyadoodii cascasa u fiirso mar labaad uu ku dhuftay baa yidhi Allahu Akbar waxa la siiyay furihii gacanta laga geliyay furihii Faris walibana waxaan arkay qasriyadoodii cadcadaama guryahoodii cadaa mar saddexaad buu ku dhuftay Allahu Akbar waxa la siiyay hada gacanta laga geliyay furihii Yaman walibana waxaan arkay albaabadii Sanaa oo fiirso dhammaan arrimahan waxa u dhacaya waa present tense waa wax hadeer dhacaya hadeer horaan soo sheegnay hadafkaaga marka dejinaysid iyo qaabka u dambeeyaad u qaabeynaysid rabtayna visualize gareynaysid waa inuu noqdo qaab present tense oo maskaxda qaybta subconscious luqada gaar ah wax ku fahantaa oo present tense inuu personal yahay inuu positive yahay inuu concrete color yahay inuu picture ahaan u muuqdo sawir ahaan Nabiga sallallahu alayhi wasallam sawir ahaan buu muujiyay waliba color buu ku dar colorkaas iyo sawirkaas iyo picture-ka present waa qaybta subconscious kuma wax ku fahmaan maanta psychology iyo science ahaan iyo research ahaan lagu ogaaday Nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada sidaas oo niyadooda iyo aqligooda programming ahaan ku programinay dabeetana ficilkooda iyo jihaadkooda iyo dadaalkooda wuxuu suurta gelinayay Ilaahay inuu tala saaranay ugu dambeyntii inay furayaasha gacanta ku soo dhigaan Nabiga ma oranaynin waxa la ii suurta gelinayaan baa ku guuleysan doontaan furaha heblaaya laakiin waxa gacanta laga geliyay furihii halkaas waxaanan arkaa waliba sawir buu muujinaya marka runtii faa'iidada iyo visualization-ka qofku inuu sawirto waxa uu hadaf ka dhiganayo oo sameeyaa waa wax aad faa'iidadeeda iyo si walba hadaan eegna awoodaha Allah subhanahu wa ta'ala uu ina siiyay qaybta aqliga soo jeeda iyo qaybta kale ee hoose labadaba markaan kaashanaan isku dayno qaabka luqadaha labaduba wax ku fahmaan waa awoodaha Ilaahay ina siiyay ku xaqiijinana kuna hanan hadafyada Allah nolosha wanaagsan ay naafacaya aakhira iyo adduunba halka laga yiraahdo hanashada hadafku 80% waa psychology 20% baa action kan iyo ficiladan aan arkayno psychology-gaas ay kamid tahay visualization-kan iyo waliba mindset-ka iyo waliba qofku inaanu cabsanin inuu qofku uu aamino oo awoodihiisa oo kalsoon naftiisa ku kalsoonaado intuba waxa weeyaan arrimaha psychology-ga oo 80% waxa hadafyadeena inaan xanaanan xaqiijino ku guuleysnay naga caawinay 20% ka soo hadhay weeyaan juhdigan iyo qoristan iyo aqoonta la baranayo iyo dadaalku marka labadaas oo la isku daray ay insha Allah ka heshanana ugu dambeynta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo suurta geliya hadafyadeena inaan si fiican u aqoonsano kuwa inaan anfacaya aakhiriya adduunba isla markaana hayno inagu sugo ficilkeeda iyo joogteynteeda labadaba aad baa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.